walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda. waxaan ugu baaqayaa dadka reer Jubbaland in ay kana tashadaan sidii uusan u dhici lahayn firaaq siyaasi ah. ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda, si professional ah ay shaqadooda u qabsadaan, difaacaan dalka, lana jihaadaan oo la dagaalamaan cadowga, oo ay joogaan furmahooda, ilaaliyaan nabadgelyada shacabka. walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda. waana dembi aan la isooga hari doonin hadday dhacdo, waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisayay. waxaan guud ahaan reer Jubbaland ee ugu baaqayaa inay ilaaliyaan midnimadooda, nabadooda iyo xasiloonaantooda, in ay taageeraan dadaalka ay dowladda federaalka waddo ee ay ugu jirto sidii ay awoodooda ugu soo celin lahayd, isla markaana ay u exercise garan lahaayeen powerkooda si ay u doortaan madaxdooda si xor iyo xalaal ah. waxaan diyaar u nahay in aan tagno deegaanka, kana qayb qaadanno isu keenidda dadka, maslaxayntooda, midayntooda iyo walaaleyntooda, isla markaana aan ka ilaalinno wax kasta oo keeni kara inay dhacaan qalalaaso iyo qulqulitooyin aan loo baahnayn. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.